diblomaasi media ayaa daawanaysaan wacan oo wanaagsan dhamaantiin saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya qodobada xilligan aan idin hayo waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay madaxweyne Xasan oo qaatay go'aan dhabar jab weyn ku noqon doona Somaliland iyo dowladda Djibouti oo qayb ka noqonaysa qorshahan halista ah xilli madaxweyne Xasan oo kulmadii ugu cuslaa xalay ka sameeyay magaalada Laascaanood haddaba Somaliland oo laga cabsi qabo in lagu dul dhiso jabhado si weyn uga soo horjeesta xukunka Somaliland waxaan idin soo gudbin doonaa qorshayaashan oo noqon kara kuwa lagu kala qaybiyo Somaliland qodobadeena kale waxa kamid ah xog laga helay Sacuudiga oo heshiiskii ugu weynaa oo military ah la galay dawladaha Soomaaliya iyo Masar xilli madaxweyne Xasan Sheekh uu tagay magaalada Riyadh ee dalkaasi Sacuudiga xalka oo markan awood gaaraya iyo xiisada geeska Afrika oo cirka sii galaysa madaxweyne Xasan Sheekhna waxa wali uu go'aan ka qaadan leeyahay inuu ku dhawaaqo gogol dib u heshiisiin xilli madaxweynaha ay u taalo shaqooyin aad iyo aad u fara badan oo ay ugu muhiimsan yihiin difaaca madaxbannaanida Soomaaliya iyo Imaaraadka oo si buuxda qalabkiisa uga rartay Soomaaliya kadib maalmo si weyn loogu bahdilayay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho qodobadaas aan ku faafayn doonaa barnaamijka insha Allah fadlan haddii aad ugu cusub tahay subscribe tahay ilaawin muuqaalka like ta saar oo la sii wadaag asxaabtiina aad baad u mahadsantihiin aynu ku bilowno wararkeena xogo aynu helnay waxay sheegayaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu qaatay go'aan dhabar jab weyn ku noqon doona Somaliland go'aankan ayaa wuxuu yahay mid si weyn madaxweynaha loogu tashkiiliyay isla markaana loo sheegay in uu yahay mid dhabar jabin kara siyaasadaha gooni ugoosadka ee Somaliland go'aanadan ayaa waxay yihiin in laga asaaso deegaanada Somaliland jabhado si weyn loo hubeynayo isla markaana si dhow looga warqabayo kuwaas oo qayb ka noqon kara sidii ay uga soo horjeesan lahaayeen xukunka Somaliland kadibna jabhadahaasi la ballaariyo marka dambena loo gudbo inay jabhadahaasi noqdaan kuwa maamul ah oo dowladda federaalka Soomaaliya taageero ka hela sidaasina uu ku fashilmi karo qorshaha gooni ugoosadka arrinkan waxaa la sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh ay kala shaqeynayso dowladda Djibouti oo hadda iyadu dagaalka ay Somaliland kula jirto meel adag oo gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorshahani ku qaatay mid markaasi suurtagal ah inkasta oo uu dalbaday in uu wada tashi u baahan yahay sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh waxaa loo soo bandhigay dalabyo ay ka mid yihiin in uu dhageysto tabashooyinka ka imaanaya dhankaasi iyo gobolka Awdal dadka degan reer markaasi Awdal madaxweyne Xasan Sheekh waxaa lagu dhiirigeliyay isla markaana lagula taliyay in uusan indhaha ka daboolanin waxa ka soo yeeraya gobolka Awdal oo ah in dadkaasi ay yihiin dad doonayo midnimo isla markaasina loo baahan yahay in si dhow loola socdo amaba si gaar ah isha loogu hayo bulshada gobolka Awdal degan waxaa loo soo jeediyay madaxweynaha in dowladda Djibouti oo gobolkaasi xuduud la leh inay iyadu qorshahani qayb ka noqoto halkaasina laga aaso kooxo si weyn uga soo horjeesan kara Somaliland kadibna samayn kara rabshado iyo waliba dibadbaxyo keeni karaya in gacanta ama talada Somaliland ay faraha ka baxdo dowladda Soomaaliya waxay ugu dhaweyd markii rabshaduhu ay ka dhaceen dhawaanahan magaalada Boorama inkasta oo markaas dowladda Soomaaliya aysan qabin dhibaato weyn oo ku aadan aqoonsigan ay Israa'iil iyadu keentay Somaliland oo haddii xilligaasi ay xaaladahan taagnaan lahaayeen dowladda Soomaaliya arrinkaasi si dhab ah ay uga faa'iideysan lahayd laakiin mar kale ayaa loo iftiimiyay madaxweynaha dadkaas inay yihiin dad mar waliba si dhab ah u doonayo inay wax la qaybsadaan midnimada Soomaaliya iyo Soomaali weyn maadaama iyagu ay isu arkaan kuwo ku dulman Somaliland haddii ay ahaan lahayd xukunka iyo sidoo kale dheefta intaba lama oga madaxweyne Xasan Sheekh sida uu arrinkan oga dhabeyn doono walow madaxweynuhu uu markaasi ku guda jiro marxaladihiisii ugu dambeeyay ee muddaxileedka markan uu haysto oo dhowr bilood oo aad u kooban ay u harsan yihiin dhanka kale madaxweyne Xasan waxa uu xalay magaalada Laascaanood ka sameeyay kulamo aad iyo aad u culus kulamadaasi oo ahaa kuwa uu kala hadlayay dhinacyadii uu la kulmay xaaladda dalka iyo sida ay tahay in looga qayb qaato difaaca waddanka madaxweyne Xasan xubnihii muhiimka ah ee uu la kulmay waxaa ka mid ah ismada maamulka Puntland kuwooda ugu caansan oo Boqor Burhaan ay markaasi horboodayeen waxaana uu kala hadlay kalana shiray sida ay tahay in looga qayb qaato difaacidda midnimada Soomaaliya madaxweynaha ayaa u sheegay inuu diyaar u yahay in uu markan wax waliba ku xalliyo miiska wada hadalka loona baahan yahay in hadda dalka oo taagan meel isgoys ah la badbaadiyo maadaama la soo duulay oo Israa'iil ay ku soo duushay madaxbannaanida Soomaaliya ismada Puntland ayaa waxay sheegeen in ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha ku garab taagan yihiin
arrinta ku saabsan qadiyadda gooni ogoosadka iyo inay kasoo horjeedaan in la kala jaro waddanka ama dalka la kala qaybiyo, taasi oo ay sheegeen inay tahay mid dhibaato weyn ku noqonaysa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee aanna ku ekaanaynin hal gobol amaba meelo kooban, balse noqon karaya mid sidii dabayshii oo kale u fida. Madaxweynaha ismada Puntland aad ay uga mahadceliyay, wuxuuna u sheegay in Puntland dhibaato weyn uusan u qabin, laakiin Siciid Deni uu yahay nin markaasi isaga iska xanaaqsan. Waa hagaag wararkeena kale haddii aynu sii eegno xogo ayaa waxaa laga helayaa in Sacuudiga uu heshiis weyn oo military ah doonayo inuu la galo dowladaha Masar iyo Soomaaliya si loo dhiso isbahaysi saddex geesood ah oo military ah oo markaasi geeska Afrika saameyn xoogan ku yeesha. boqortooyada Sacuudiga ayaa waxa ay wadahadalo kula jirtaa dalalka Masar iyo Soomaaliya kuwaasi oo ku saabsan saameynta isbahaysi ciidan oo ujeedkiisu yahay xoojinta amniga badda cas. Tallaabadan ayaa imaanaysa xilli uu sii kordhayo xifaaltanka kala dhaxeeya Imaaraadka ee ka soconaya Yemen iyo geeska Afrika, iyadoo ay warisay warbaahinta weyn ee la yiraahdo Bloomberg oo soo xiganaysa ilo xogogaal ah oo la socda arrimahaasi. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa la filayaa inuu dhowaan u safro Sacuudiga si loo soo gabagabeeyo qodobada heshiiska la soo jeediyey dowladaha Riyaad, Qaahira iyo sidoo kaleeto Muqdisho. Weli si rasmi ah looma xaqiijin wadahadalladan, mas'uuliyiintuna ma aysan shaacin in ay socdaan wadahadallo iyo qorshayaal dhab ah oo arrinkaasi ku aadan, laakiin xogahan waa kuwa lagu kalsoonaan karo oo warbaahinada waaweyn ayaaba tebinaya. Haddaba wadahadalladan ayaa ku soo aadaya xilli awoodaha gobolka ay aad ugu loolamayaan saameynta marinka muhiimka ah ee badda cas iyo gacanka cadmeed, kuwaas oo isku xira kanaalka Suez ee waqooyiga iyo marinka Baabul Mandab oo koonfurta xeebta dheer ee Soomaaliya ka saaran, iyo dhawaanshiheeda marinada badeed ee muhiimka ah ayaana sare u qaaday ahmiyadda istiraatiijiyadeed. Haddaba haddii Sacuudiga, Masar iyo Soomaaliya ay yeeshaan heshiis military oo dhab ah oo ku aadan in dowladahaasi ay istaageeraan oo weliba dhanka militariga ah, in xaaladdu aad bay ugu adkaan doontaa dhankaasi iyo Israa'iil iyo Somaliland, maadaama Sacuudigu uu haysto dhaqaale aad iyo aad u xoog badan iyo ciidamo markaasi aad u badan oo Pakistan u badan, iyo sidoo kaleeto Masar oo iyaguna awood ciidan leh, iyo dowladda Soomaaliya oo halkii lagu loolamayay iyadu fariisin ku leh, waana saameyn xoogan oo gobolka geeska Afrika uu marba marka ka dambeysa lagu hala sii gelayo. waa hagaag barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay ayaad la socotaan saaxiibayaal. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh weli waxa uu go'aan ka qaadan leeyahay arrinta ku saabsan in la isugu yimaado gogol siyaasadeed oo dib u heshiisiin ah, isla markaana lagu xalinayo tabashooyinka dowladda federaalka, dowlad goboleedyada qaar iyo mucaaradka. War ayaa sheegaya in madaxweynaha ilaa iyo maanta ay suurtagal tahay inuu markaasi shaaciyo ama iclaamiyo gogoshaas la isugu imaanayo oo la filayo in xalka ay ka dhacayso ay noqon doonto magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Puntland, Jubbaland, mucaaradka iyo dowladda federaalka ayaana is arki doonaa. Madaxweynaha waxa uu weli markaasi haystaa waqti, maadaama xubnaha mucaaradka Jubbaland ee Puntland ay qabsadeen ilaa iyo 20 January inay u baahan yihiin in madaxweynuhu uu ku soo jawaabo oo uu ku soo hadlo, isla markaana arrinkan meel ay u dhacdo, haddii kaleeto xaaladdu ay noqon doonto mid markaasi faraha ka baxda ama mid ka darta. Waxaa la rajeynayaa in madaxweynaha uu arrinkaasi uu ku dhawaaqayo. ugu dambeyn, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in ay gebi ahaanba qalabkeedii ugu dambeyn ka rartay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib markii dhowr maalmood lagu bahdilay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Imaaraadka oo si diblomaasiyadda ka baxsan loola dhaqmay ayaa qalabkeedii ugu dambeyn ka rartay Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. intaas ayaan wararka qaar ku soo afmiraya. Nabadi.